Kula wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya oo bahdishay beesha caalamka iyo sidoo kale wadamada C6 Plus ee ku sugan xerada xalana ee Muqdisho iyo jawaab la yaab leh oo bixiyay Ambassador James Swan. Haddaba mala joogaa waqtigii Soomaaliya ay isaga bixi lahaayeen wadamada shisheeye iyo sidoo kale beesha caalamka ee Soomaaliya taageerta. Waan soo gudbin doonaa waana falanqeyn doonaa. Waxaan sidoo kale qaybtan ku soo qaadan doonaa xogihii ugu dambeeyay dagaallo kala duwan oo culus oo la filayo in dhowaan ay ka bilowdaan qaybo ka mid ah gobollada dalka. Al-Shabaab oo qorshihii ugu weynaa loo degay waan soo gudbin doonaa. Waxaan sidoo kale qaybtan ku soo qaadan doonaa dowladda Soomaaliya weli dhag jalaq uma siinayso arrinta ku aadan shidaalka. Madaxweynaha Soomaaliya maanta waxa uu booqday markabka Orog Rice oo soo gabagabeeyay sahminta shidaalka Soomaaliya. Ka horse muuqaalka like saar oo subscribe bartan ku soo bir si aad u hesho wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay. Aan ku bilowgo iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya warqad cad ee u dirtay wakiilada beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya gaar ahaan wadamada C6 Plus ee xalana ku sugan ayaa waxa ay ka dalbatay inay ka aamusaan arrimaha kala duwan iyo siyaasadda Soomaaliya loona baahan yahay in Soomaaliya kaligeed hoggaankeeda ay go'aan gaaraan. Arrintaas oo noqotay midda ugu hadalhaynta badan saacadihii ugu dambeeyay ayaa war culus oo kale ka soo baxay. Warqadda loo diray Ambassador James Swan ee ku sugan ama wakiilka qaramada midoobay ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka soo jawaabay shir degdeg ah ayay yeesheen wadamada C6 Plus. Shirkooda degdeg ahna waxay kaga arrinsadeen warqaddii dowladda Soomaaliya ka soo baxday. Warqadda dowladda Soomaaliya ka soo baxday shirka degdega ay ka yeesheen jawaab ayay ka bixiyeen. Waxa ay jawaab u soo direen wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balcad. Waxay yiraahdeen wasiir warqadaadii waan helnay, fariintaadii waa ina soo gaartay oo ku taariikhneysneed shalay. Si walbay ahaato wadamada C6 Plus weli doorkoodu waa uu muuqdaa waana loo baahan yahay. Sababta waxay ku sheegeen in weli wadanka ay ka jirto xaalad amni darro. Al-Shabaab qaybo ka mid ah gobollada dalka ay joogaan. Saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ee taageero wakiilada wadamada Afrika, ciidamada wadamada Afrikan ee Soomaaliya ay ku sugan yihiin lana taageero. Waxay sidoo kale yiraahdeen wadamada C6 Plus looma aas-aasin oo kaliya ama lama aas-aasin waqti ay wadanku xumaa, balse waxay joogeen waqti wadanka xaalado kala duwan uu ku jiray. Marka hore mudane wasiir waad ku mahadsan tahay arrintaada, waana aragnay fariintaada, waxaana qorshaha uu yahay in jawaab kale oo weyn oo tan ka duwan inaan goordhow idiin soo siino. Waxay sidoo kale sheegeen in warqaddii dowladda Soomaaliya ka soo baxday ay tahay warqad runtii aan laga fiirsan. Waa sida hadalka ay u dhigeen wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya magaalada Muqdisho ku sugan. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaadatay go'aan aad u khatar ah. Haadaan ayayna iska tuurtay sida la sheegayo. Haadaantaas oo la sheegay inay tahay mid ka mid ah go'aamadii ugu qaraarnaa ee dowladda ay qaadato. Wasiir Cali Balcad waxaa lagu eedeynayaa in Xasan Sheekh Maxamuud haadaan uu ka tuurayo oo ku aadan sida uu wax u wado iyo sidoo kale qorshaha kala duwan uu hadda uu doonayo. Balse wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa go'aankiisa ka dhadhacsiiyay madaxweyne Xasan Sheekh. Beesha caalamka ayayna madaxa isla galeen. Mucaaradka ayaa hadda yaaban maadaama meesha kaliya ay u laaban jireen una dacwoon jireen ay tahay beesha caalamka. Waxayna mucaaradka hadda weji ka bax kala kulmayaan wakiilada beesha caalamka oo iyagu la yiri waxaa la idin dhisay waqti uu xaalad adag wadanku ku jiray. Waqtigaana ma ahan waqtigii hore oo isbedel ayaa jira. Mas'uuliyiinta dalka Soomaaliya gaar ahaan siyaasiyiintii dalka soo maray Sheekh Shariif Xasan Cali Kheyre, Rooble Cumar Cabdirashiid, Wasaare Saacid iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan ayaa hadda cabsi weyn soo wajahaysa maadaama wadamadii C6 Plus isku haleynayeen oo ay u dacwoonayeen laftirkooda dowladdu ay sheegtay inaysan aqoonsaneen oo ay ku bahdishay qoraal ay u dirtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxa uu doonayaa in gogol Soomaalilu ay leedahay lagu wada xaliyo wax kasta oo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dowladda dhankooda ay soo fariistaan oo ay ka hadlaan tabasho kasta ay qabaan. Xaaladda ayaa sii bedelaysa marba marka ka dambeysa, iyadoona xaaladda Soomaaliya hadda ay sii gelayso waqti doorasho ah. Waxaana la filayaa hadda in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud culeyskii ugu weynaa uu la kulmo, culeyskaas oo kaga imaanaya wakiilada beesha caalamka Soomaaliya taageera siyaasiyiinta mucaaradka ah. Xasan Sheekhna waxa uu ku tashanayaa madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, SSC Qaatumo iyo sidoo kale siyaasiyiin iyo xildhibaano iyo wasiiro isagu taawacsan oo taageersan. Haddii intaas aan kaga gudubnana guluf colaadeed oo ka dhan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhowaan la bilaabi doonaa
dagaalkaasina wuxuu noqonayaa mid ka mid ah dagaalada ugu cuslaa. Dagaalka waxaa la filayaa inuu hogaamiyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawaye Yuusuf Raage oo dagaalkii Aadan Yabaal ka dhacay kasoo cararay halkaasi. Qorshaha waxa uu yahay in Al-shabaab looga soo afjaro Shabeellada Dhexe muddo gaaban, muddadaasi gaabanna ay noqoto muddo ay dowladda Soomaaliya qorsheysanayso in dagaalamayaasha Al-shabaab halkaasi guud ahaantoodaba lagu soo gabagabeeyo. Dagaalka ayaa waxaa horkici doona Odawaye Yuusuf Raage, waxaa sidoo kale Soomaaliya ka taageeri doona diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga ah ayaa duqeymo kala duwan la filayaa dhankooda inay fuliyaan. Duqeymahaas ayaana noqonaya qaar ka mid ah duqeymihii ugu xoogganaa ee dalka ka dhaca. Muddo kooban ayaa la doonayaa in Al-shabaab lagu soo afjaro deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellada Dhexe, wuxuuna noqonayaa dagaalkaasi mid ka mid ah dagaalada ugu xoogga badan ee Al-shabaab in dhowaan ahaanba lagu qaado. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kala duwan ee dalka Soomaaliya ayaa dagaalka ka qayb geli doona sida qorshaha uu yahay. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa furimaha tegi doona ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Si kastaba ha ahaatee, Al-shabaab oo hadda degmooyin iyo deegaano badan haystaan, muddo kooban ma lagu soo afjari karaa? Waa su'aasha isweydiinta mudan oo ka dhex guuxaysa maskaxda shacabka Soomaaliyeed oo ilaa iyo hadda lala yaaban yahay. Markana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo ay jirto arrintii ku aadaneyd shidaalka ay qodayso dowladda waddanka Turkiga oo 95% ay qaadanayso, ayaa hadda waxa uu booqday markabka Orgrice lagu magacaabo oo sahminta ka wada waddanka Soomaaliya. Markabka Orgrice wuxuu soo gabagabeeyey howlihii sahminta ahaa uu ka waday gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba, iyadoona markabkaas hadda markii loo eego hadda isbeddel weyn uu jiro maadaama shidaal sahmintiisa uu soo gabagabeeyey. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho ku tegay goobta markabkan uu ka wado sahminta, waxa uuna madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud u kuurgalayay baarista shidaalka dalkeena, wuxuuna Xasan Sheekh Maxamuud markii halkaasi uu tegay uu la kulmay mas'uuliyiinta Turkiga ka socda ee hogaaminaysay markabkaasi sahminta shidaalka ka wada Soomaaliya. Markabkaas waxaa la sheegay in Soomaaliya dhinacyo kala duwan looga faa'iideysanayo, dhanka iyo shidaalkana Soomaaliya hadda lagu bahdilayo, isbeddel weynna uu jiro. Si walba ha ahaataba, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dhagaha ka fureysatay arrintii ku aadaneyd in 95% dowladda Turkiga ay qaadato dheefta badda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha shidaalka. 5% oo canshuur laga rabaana dowladda Soomaaliya ay qaadanayso in muddo ahba. Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud hadda culeysyo kala duwan ayay kala kulmaysaa, beddelistii dastuurka, arrinta shidaalka, arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale arrimo kala duwan oo lagu eedanayo inuu Xasan Sheekh Maxamuud si iskiisa u meelmarsaday, si kaligiisana uu hadda u qaabeysanayo. Si walba ha ahaato, isku soo wada duubo arrinta shidaal sahminta Soomaaliya dhankeeda faa'iido weyn ayaa ugu jirta sida lasoo warinayo. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Like saar, subscribe bartan ku soo bir si aad u hesho wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay.